ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواح. بسم الله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal waxaan kusoo jirnay duruustii imtixaanaha inoo ahayd kitaabkii fiqiga ahaa ee la magac baxay almabaadi'u alfiqhiya calaa madhabi imaam shaaficiy raximahu llahu tacaala raxmatan waasica. xalaqadan ama darsigan waa darsigii shanaad ama xalaqadii shanaad. ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inoo yasiro. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen xalaqaadkii hore ee 1 ilaa 2 ee maanta aan joogno 5 biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. saa'aalaaba idiin tilmaamo darsiga aan akhrinayo ee kitaabkan waxaan soo saarnaa shaashadda si xarafka aan akrinayno iyo kelimadaan akrinayno aad si toosa muuqaal ahaan aad uga daawataan shaashadda tv-gan Kalson TV. haatana waxay noo bilaabanay darsigii iyo meeshuu inoo jooga annagu kasii qaadno. darsiga waxaan ka bilaabi doonaa makruhaat alwudu, waxyaalaha la karho ee la dhibsado markii weysada lagu jiro, waxyaalaha laga fiican yahay oo karaahiyada ay tahay. waxaa ka mid ah al-israafu fi lmaai, in biyaha lagu takrifo oo lagu xadgudo, leanna qofku inuu qasabadii biyaha ama tuubada iska furo falalaq. madhabka shaafici wuxuu ku daray waxyaalaha makruhaadka ah ee laga fiican yahay. ficlan waa saas. ilaahay ma jeclo, in allaha laa yuxibu lmusrifin, ama maalkaaga ku israaf ama biyihii ku israaf. wax walba in la tashiilo oo la nadaamiyay ku fiican yihiin. marka al-israafu fi lmaai, in biyaha lagu israafo waxyaalaha la karhay ka mid tahay markaa weyse qaadashada ku jirta. iyo watakalum, in lagu hadlo bikayri dikri, waxaana dikriga ilaahay tabaaraka wa tacaala ahayno, inuu qofkii soo weyse qaadan iska hadlo wax kalo uu iskaga cantaro maqashiyo, waa laga fiican yahay. ficlan wax dhiba ma lahan, laakiin waa laga fiican yahay. qofka xaafid hadduu weysada ku jiro xoogaa weysada iskaga mashquul, laakiin hadduu iska hadlo qofkaas oo maaragtay wax iyaduna dhiba ma laha, wax iska caadi ah. iyo walisticaanatu calayhi biaakhar, qof kale in maaragta waxyaala la karaha waxaa ka mid ah qof kale in weysadii uu gacantuu biyihii qabto uu ku shushubo, ayaduna waa laga fiican yahay oo aad kaalmaystid. haddii uu xanuun jiro dhib ma laha. hadduu qofka xanuun jiro waa la caawin karaa oo intii biyihi caagada lasoo qabto gacanta loogu shubi karaa oo wejiga dhaqi karaa ama loo weyse qaadi karaa. wixii xanuun ah laga hadli maayo, laakiin adigoo caafimaadkaadu taam yahay inaad tiraahday qofkii gacanta igu shub, wejiga igu shub, lugtaan dhaq, saasuu qofka kaalmadaas waa waxyaalaha la karhay ka mid tahay oo laga fiican yahay. waa tahay ma aladii yaxrumu cala almuxdithi xadathan asqar, maxaa xaaraan ka ah qofka ku dhacay ama uu haleelay xadadka asqarka. xadadka waa dhacdo yar oo ama neef baa ka timid ama maxaa layihahda qofkii weysada baa ka burtay, saxaaro iyo si kale uga burtay, ama haddaan u dhaqaa dhinaca shaaficiyadii gabar haweeney ajanabi u taabtay. qofka weysada mar haddii ka burto maxaa xaaraan ka ah oo weyse qab uusan qabin? yaxrumu caleyhi, horta waxaa xaaraan ka ah salaad, inuu qofkaas salaad u istaago waa ka xaaraan. xadiiska nabiguna garanaysa laa yaqbal allahu salaat idaa xadatha, qofka haddii neef ka timaado ilahay ka aqbali maayo salaad bilaa weyse, ilaah ma aqbalo. wadawaaf, qofka inuu kacbadii dawaafo weysada la-aana ayaduna waxyaalaha xaaraanta ka qofka inuu weyse qabaan. xataa adoo dawaafayo oo cumradii ama xajkii haddaad dawaafaysid oo dawaafkii aad maraysid meeshaas weysada kaa burto, meeshii aad maraysid oga baxaysaa, waadna xisaabsanaysaa shoodka ama wareegii markaas meesha ku taagna waad joojisanaysaa, kadibna meesha meedhowda kasoo gelaysaa ood ka bilaabaysaa. laakiin adoo weyse qabin oo bilaa weyse ah ma dawaafi kartid weeyaan. maxaa yeelay dawaafku suu nabiga noo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa adigoo salaad ku jiro oo salaadii lagu hadlayay ka mid tahay. marka waa lagu sheekeyn karaa dawaafka, laakiin salaada laguma hadli karo. intaas ay kala duwan yihiin wey. waxaa kaloo ka xaaraan ah wamasul musxafi
وحامله قفك وحكى شافعي قفك دو ويسا قبن إن وحان إلى وصل كتابك إلهي تابن كرين أما وحن باري كرين أنت أمرك وأنا نسكو خلاف سيهاي قفك ويسا قف كتابك علوم بدن باقبته مذاهب فرا بدن باقبه لكن شافعي وحي كتغي قفك دوسا ظاهر هين إنه كتابك إلهي تبارك وتعالى آخر كرين أما أوسن قبن كرين أيكو قاطع يدي لا يمسه إلا المطهرون واتهاي وكسي قد بيناي وحمسي قد بينا الغسل قبيس ما الغسل قبيس كمحويه هو حويان غسل جسم الإنسان كله من أعلى الرأس إلى منتهى قدمه قفك أجركي صدقه ماشي أوسن سيتبها إلا أي هوس لغسو قالوا قمضها مارت إيه لغها أنقو إذا لا لغها هوس لا قالوا قفك بيو كوضو الشمال لهذا ماركا كم فروض الغسل وحيالها واجباتك قبيسك واجباتك سمحيين واللغو باهي قفركو قبيسانيو مركو قبيسانيو قفك حلوغو باهيه فروضه 3 وصدح لو بهيه كو النية إنه عند غسل أول جزء من البدن غسل قبل وحنا نقرأ كي أما جنابها لقى قبيسته أما محاني النفاس جوادي حيد كقبيسته جوادي حكى وضع النفاس المذهب كقبيسته جوادي حيد كقبيسته بروح لو بهيه هاي النية إنه قفك النية عند غسل أول جزء من البدن كجركي سباشا وهو رئيسه كنقيه إنه النية اللي ما ضحك كقبيسته أما حيد كقبيسته نيسو ama maxaan yiraahdaa janaabha ka qabaysan niyadaas loo baahay niyada lagu dhawaaqi maayo laakiin waxa loo baahan yahay inuu qofkii maxaan dhahay uu niyeysto الثاني مد لبعض إزالة النجاسة من البدن قفك إنه نيسو نجاسة ومركاسي اسك ظهرني حيد كيو كلا وحيالها صودا إنه قبل نيسو توي الثالث قضب صدحات وصول الماء إن بيها لقارسيو إلى جميع البشرة والشعر jirka oo dhan ilaa timaha xaqiiqatan asaasa fiican qofka duu janaab ka qabaysanaya waa inuu timaha madaxa iyo meel kasto tin iyo ilaa laabyada ilaa caloosha iyo waxaas oo dhan inuu qofka jirka iyo dhan timaha iyo meel kasta tin ku taala iyo caloosha xitaa hadii la laaban tahay meel walba marka janaabada laga qabaysan ama xeed laga qabaysan ama nifaas laga qabaysanayo waa inuu jirka oo dhan si fiican qofka biyaha u gaarsiiyo waa tahay ma niyatul ghusl marka la qabaysanayo niyada loo baahan yahay maxay tahay marka maxaa dhahaysaa weeyii shaafici dadku xirqan in la weytu waxaan niyeysanayaa al-ghusla قبيسشو لرفع الحدث الأكبر بعد وينيد soo darisay sidii janaabadii iyo maxaan ilaaday xaydkii iyo nifaaskii iyo qofka ridooba waxaas oo dhan inuu niyadaas ku dhawaaqay leeyahay laakiin waa lagu kala tagsan yahay qofka niyada inama al-a'malu bin-niyyat xadiiska ka weyn amalku waa niyada afka ma ah waa tahay mal hadath al-akbar maxay ku yiri hadathka al-akbar maxaa laga wadaa hadath al-akbar waa soo sharaxnay waxaa laga wadaa وكل ما أوجب الغسل وحلبو قبيس واجبي وحلبو قبيس واجبي شرعي أو فقه مركي لغة الفقه وتقانا الحدث الأكبر أما الحدث الأكبر دعوة وينيد مركي وحيالا يرنو حالا حدث الأصغر دعوة يريد سيدا إن الناف كإمادو إن لبضا ودو صحراء أما كادي كإمادو حالا حدث الأصغر ساس مركا على صعود إن شاء الله ما الحدث الأكبر محوية دعوين هو حويا كل ما أوجب الغسل حلب واجب سدو إلا لقى قبيستو قبيسوي ما الذي يوجب الغسل محاكي أنا إنه قف كورت قبيس وحدث أكبر إنه كله محاكي يعني كرو الجنابة كو جنابة ذكو دعوة واجب حكو أنا قبيست والحيض إن جبادي حيض تكو دعوة كلنا إذا كقبيست والنفاس والولادة نفاسك ولادتي نقفكي قبل نفاس كله أما ديجي عادي أي ولادتي دالماضي إني قبل دالماضي هذي دشوا إني ديج بدل ما كيما نمر كولا سبحان الله ربع مركي كقبيسة نيسو ديجا كذا ماض إني قبيس كي جنابة وكله عند هاي لا تماد ما الجنابة محاتا مركي هي وحاول الجماع وكل الأحمر نينك يحاسكيس كل حلالة ama xaraan nooc hada hadii qofkii galmo uu sameeyo waxa waajib ku ah janaabo inuu ka qabisto waxa kale oo kamid ah janaabo loo yaqaan qofka haduu seexdo oo uu asagoo jiifo ay wax ka imaadaan isku junubo ayaduna waa qabiis wey janaabo la yiraahdaa wa nuzulul mani inay qofkii biyo ka soo dhacaan marka hadii biyo ka imaadaan waxa way qofku waa inay maxaa lagu qabaysto laakiin sharciga islaamku sidoo kale wuxuu qabaa ninka xaaskiisa haday istaabtaan labada نسوا النبي نشق عليه الصلاة والسلام إذا التقل ختاناني لبدي جدنين هذا استابتان حويان وحواجبه إن لقى قبيس هذه لبضة استابتان
isgaaraan waxa waajibayo ilaahumay biyo imaadaan ama aysan imaanin in la qabaysto weeyaan. nacam bal xadiiska waxaa jira nabigeena ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam haddii idaa jalasa hadduu ninkii u fadhiisto afarteedii shucab al-arbac waxaa wey asagana waajib waxaa ku noqonaya inuu ka qabaysto weeyaan. mal haydoo maxaa tahay? huwa waxaa weyaan addam waa dhiig alkhaariju ka soo baxo min almar'ati haweeneedu ka yimaadaay bacda 9 siniin markay 9 sano gaadho. gabadhu markay 9 jir tahay ayuu dhiigan ku dhacaa calaa sabiili sixati si caafimaadana waa uga dhacay wax iska dhacitaan wax gabadhaha ku dhaca wey iyo wal caadati iyo wax iska caado dhaqan soo jireen wey. gabadhu markay 9 sano jir tahay wuu ku dhici karaa wey. umuna caashana ayuu ku dhacay. gabdhuhu marka 9 haday gabdhuhu gaaraan waa in laga baarbaara oo waalidkii in la socotaa gabadhiisii arrimahaas oo kale wax ka ogaato. wiilashuna waxaa laga yaabaa adigu 14 15 ma ay ku qangaaraan waa inuu asagana isku arko biyihii uu biyo duuliyo bartii ay gabadhu ayadu xayd ku dhacayo. waa tahay man nifaas oo maxaad ahayd? huwa waxaa weyaan addamu waa dhiig alkhaariju ka soo baxo meel marata haweeneeda caqabi alwilaada markay dhasho kadib ayuu ka yimaadaa. maadaa yaxrumu cala aljunubi qofka janaabada qabo maxaa ka xaaraan ah? qofka janaabada qabo maxaana u banaanayn? yaxrumu caleyh waxaa xaaraan ka noqonayo alsalaatu waaldawaafu wamasu lmusxafi waxamluhu qiraa'atu lqur'aani walmukthu fi lmasjid. 5 arrin baa shaaficiyadu ay qabaan inuu qofkaasi xaaraan ka tahay, sida asalaa inuu asagana salaad u istaago asagoo janaabo qabo ma tukan kara wey. wadawaaf waa inuu dawaafi karin wuxuu lamid yahay isagoo neefta ka timid weysada ka burta. wamasu lmusxaf iyo inuu taabto kitaabka ilahay tabaaraka musxafki ama uu qaado walow aan dhahanay khilaafaa ku jiro. wa qiraa'atu lqur'aani inuu qofka qur-aanka akhriyana shaaficiyadu waxay ku tageen inay ka tahay xaaraamun caleyhi bay ka noqonaysaa. walmukthu fi lmasjid qofka soo janaabo qabo inuu masaajid iska dhex fadhiyo ayadana waxyaalaha xaraamka ah weeyaan. maadaa yaxrum maxaa xaaraan ka ah cala alxaa'idi gabadha xaa'idu ahayd iyo wanufasaai gabdhuhu gabadh nifaaska ku dhacay maxaa ka xaaraana weeyaan. alsalaatu waasawmu wamaa yaxrumu cala aljunubi waxaa ka xaaraana salaadii soomkii iyo wixii qofkii janaabada qabay ka xaaraanta ahaa ayaa qofkaana xaaraan ka ah weeyaan. nacam atayamum hadda waxaan soo qaadanay qusligii iyo qaabkii iyo janaabada looga qabaysanayay iyo wixii oo dhan iyo xaydku muxuu yahay waxaasoo dhan. haddana waxaan usii gudagelaynaa atayamumu booraysigu. tayamum maxaad ahayd? booraysigo maxaad ahayd? huwa waxaa weyaan masxu lwajhi walyadayni bituraabi daahirin waa masaxitaan la masaxo alwajhi wejigoo la masaxo iyo walyadayn wejiga waxaa lagu masaxayaa wejigii yadayn labadii gacmood bituraabin ciid daahirin daahir ah badalan can ilwuduu'i waxayna u taagan yihiin oo badal u yihiin oo booskoodii ay joogaan weyse qaadashadii. marka haddii uu qofku biyo waayo waxaa weyaan waa inuu gabagabaystaa oo booraysi baa layidhahda tayamum baa layidhahdaa. qaabka loo tayamumayna waxay tahay qofku inuu gacanta marka hore jug ku siiyo dhulka kadibna uu wejiga mariyo kadibna labadii gacmo hore inuu midigtii iyo bidixdii korka saas qaybta kore baabacada mehe qaybta kore jirka ee maaragta gacanta inuu saas ku dul mariyo midigta saa u marna iyo bidixda saasaa la yidhaahdaa. walow shaaficiyada ay ka taganayo kuwa inay dhahayaan wejiga marka hore intuu gacanta ku dhufto ayuu wejiga marinayaa haddana sida weysadoo kale ilaa suxulada ayuu gaarsiinayaa. shaaficiyadu saasay qabaan laakiin sida nabigeena ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan inuu qofka gacmaha labada gacmood jug ku siiyo kadib wejiga mariyo kadibna meeshii iyo calacalihii uu gacmaha ku qabtay dhulku dhuftay inuu haddana korka mariya gacanta qaybteeda kore ee madowga ah miduu ka bilaabay bidixna ku xijinaya. saasay kugu dhan tahay booraysigii saasay kugu dhan tahay. waa tahay wuxuu yidhi aan dhammayne masxu tayamum wuxuu yidhi wahuwa waxaa weye wamasxu lwajhi walyadayni bituraabin daahirin badalan can ilwuduu'i aw ilqusli. meeshaanan ka tagay aw ilqusli oo maxay tahay bedelkii weysada ayuu u joogaa tayamumka ama aw ilqusl janaabadii qofkii janaaba ku dhacday ama gabadhi xayd baa ku dhacay xaydka kadib waxay rabtaa inay qabaysto ma haysata biyo ama cilad kalaa jirto maxay samaynaysaa way gabagabaysanaysaa. ninkana qabow ama cuduraa jiro uu gabagabaysanayaa wuuna ku tukanaya. marka waxay u taagantaha weysadii iyo janaabadii ad ka qabaystay labadiiba qabayskiina uu kaa gudayaa uu kaaga egyahay.
كم فروض التيمم محيط هاي شروط أي واجبات كلية هاي التيمم بوريسيا فروضه 5 شرطية دي واجبات كيسو عشان الأول مدو كوات النية أرتلو قفك النية يستمركي وسنيسنو بوريساني وإنو نيدا لي مع ذاي الثاني مد اللعبات نقل التراب إنو كسوق هذا عيدي نقل سقاط العيدي إلى العضو الممسوح ماشي لمسح الأسوق قرسيه الثالث قضب كصدحات مسح الوجه وتوجه مسحه الرابع قضب كأفرات مسح اليدين إنه إلى مسح اليدين مع المرفقين إنه قعمه لو قعموت ومسحه إلا لا يقار جقلده أما صح لذا إنه قاسيه وأصدق شافعي الخامس قضب كشانات الترتيب إنه ترتيبه ونظامنا وأولي بعده لكن وصول الشيء sida nabigeena ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam loo tayamumayo qofka uu booreysanay maxaa lagu booreysan karaa hadii aadan ciid bahayni ka war hadda wadamada dibadaha marka la in dhulka aad ciid aragtaa iskira meel walba dhagax iyo laami way marka dhagaxaas ama laamigaas way kaaga gudaysaa ciidi waxa dhici karta inaad ciid ba arag ama aad dhagax araga taran aad saaran tahay way sida ka burtay biyo aadan haynin salaadna ku hayso sida saxda waxay tahay qitaarka ama taranka saaranta darbigiisa ama birtiisi ayaad bedelkii maxaan leedahay ciidda ku joogo waad ku dhufanaysaa labada gacmood kadib wajiga maraysaa kadibna calaalaha ama calaasha labada calaalood ayaa midda midigta ah kor soo marinaysaa waxaad marta gacantii ayaad kor kaga masaxaysaa labada gacmood ayaa isku masaxaysaa waa kafeenka waa kafaraha hore ayaad ku masaxaysaa khalaas saas uu kugu dhayahay maxaan dhahaa tayamumkaagi saas uu kugu dhayahay goorta uu tayamumka ama booraysigu burayana kitaabka inoo sheegi doono ka hor dhici maayo insha Allah tabaaraka wa tacaala maa niyatu tayamumi maxay tahay niyada looga baahan yahay qofka tayamumka la imaanayo iyo waxay tahay nawaytu inuu waxaan niyeysanayaa at-tayammuma liistibaaxati as-salaati al-mafruuda haasu leeyahay waxaan banaysan niyeysanayaa inaan gabagabaysanayo ama booraysanayo anigoo xalaal ku banaysanayo الصلاة المفروضة صلاة واجب إسارة أيان ساس درادد بان نيدا أولا إيماني ودواقع سيلي إذا هي نويت وحاني سنة يأتيامم إن تيامم الاستباحة أنا كوبانا سنة الصلاة المفروضة صلاة دي واجب كإيه هيد ساس ليه متى قرمي يجب واجب نغنيا التيامم قرمه واجب نغنيا عند فقد الماء مركبيه لوايو وعند خوف استعمال الماء لبرد أو مرض خوفكي أو cabsi ka qaba biyihii qabowga aawadood ama xanuun jira aawadiis ama in biyihii loo baahan yahay oo jira aawadiis oo biyaha iska yaryihiin ama xayawaan muxtarim ama xayawaan maxaan dhahay la ixtiraamo oo de caadiga ah asaga haraad uu la dhimar inaad biyo ku badbaadiso kale ayaduna markaas oo kale waa la gabagabaysanayaa way ama waa la booreysanayaa ما الذي يبطل التيمم حابريه تيممك يبطله وحابريه كل ما يبطل الوضوء أرض وحوى البو ويسبريه صلاة تيمم كجره أو تيمم تي هذا النايفة كاتب هذا ده وحاول يسد ويسد وكلاوي ويسد ويسد وكلا وحكى له معرفة برني ورؤية الماء بيلارك في غير وقت الصلاة إيه صلاة أيضا الجرين إيوه والردة عياذا بالله تبارك وتعالى qofka inuu ridoobana ayaduna way burisaa waxa kale oo jira walaal qofka hadii uu maxaan dhahay meel ay xiran tahay meel bay qofku ay dooban tahay muxuu sameeyaa meeshaas qofku wuxuu marin karaa hadii uu karaayo inta aanan maxaan dhahay hadii qofkii amaliyada uu sameeyo lugta laga jaray ama laga dhaawac gaaray marka hore uu weysa qaadan karo kadib dhul koro ka masaxaya meesha marka biyo inta kale gaarsiinaya meeshaasna oo masaxaya marka badal gabagabaysaas biyo marin maayo marka ayadana waa uu banaan tahay oo meel jeesada ku xiran ka wada qofku weysiisanaya inta kale biyo gaarkaas kale sidii gabagabada kale uu masaxaya ayadana wax banaan weeyaan biidna tabaaraka wa tacaala soo kale qabayska qofkii uu qabays baa laga rabaa jaraabadi gacan baa u duuban muxuu sameeyay gabagabaysanaya hadii uu qofkaas awoodi karay marka hore intaan dhaawacan la duubin hadii uu asoo intuu weysiisto kadib dhaawacaas amalida lagu sameyn karo ama lugta wixii loo duubayo way u banaatay laakiin hadii wixii intii wax degdeg ah dhacay lugtii dhaawac soo gaaray
wuxuu samayn karaa inta kale ayuu biyaha marinayaa oo iyaduna waa wax bannaan. meeshaasna wuxuu samaynayaa maxaan dhahay wuu masaxaya oo keliya. masalada dadka qaar baa inay ku baraarugsaneen laga yaabaa, laakiin haddii qofka ay cariiri ku tahay oo xaaladdu aysan u saamaxayn waxaasoo dhan oo dee qofkii lugihii iyo uu ka jaban yahay, waxa uu iska gabagabaysanayaa biidn illahi tabaaraka laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscahaa. sidaas weeyaan. waa tahay asalaa, halkaan waxaan gelaynaa salaadihii. calaa man tajibu asalaat, horta salaadii waajib ku tahay calaa kulli muslimin baaliqin caaqilin, qof walbo muslim oo caaqila oo qaangaar ah ayay waajib ku tahay. wa calaa waliyi sabiyi an ya'mura, waxaa kaloo waajib ku ah weligii aabihii ama hooyadii an ya'murahu inuu amro weligii bisalaati salaad inuu amro oo uu faro bacda tamaami 7 siniin, ilmihii markay gaaraan 7 sano. wayadrubuhu calaa tarkiha inuu ku garaaco bacda kamaali 10, marka 10 jir in lagu garaaco. xadiiska nabi alayhi salaam baa sida ahaaye in ilmihii maaragtay lagu canaanto. meeshaas waxaa weeyaan aana laga yeelin salaad la-aan wey. salaaddu marka waxay leedahay shuruud iyo arkaan. marka wuxuu kugu soo hormarinayaa shuruud asalaa. shuruud salaati 5 ayuu leeyahay. alawal waxaa weeyaan aldahaaratu min alxadath alakbari waalasqari, qofka inuu daahir ka yahay alxadadkii xadadka soo sheeg dhacdo weyneed oo janaabadii waxaasoo iyo xaydkii nifaaskii iyo walasqar sida saxaradii ka timid iyo neefada ka timid inuu daahir ka yahay weeyaan. qodobka labaad dahaaratu albadani walthawbi walmakaani min annajaasaat, meeshii qofka ku tukanayay iyo badankii jirkiisii iyo maaragtay wax walba in intaas oo dhan ay daahir ka yihiin. dahaaratu albadani, jirki inuu qofkii daahir ka yahay, wathawbi dharkiisana daahir u yihiin, iyo walmakaani min annajaasaat, meeshii lagu tukanaya najaasa inuu daahir ka tahay. qodobka saddexaad satru alcawra, cawradoo la asturo. arrintaas cajiib waaye, dad badan kuma baraarugsana. waxaad arkaysaa nin dhan kugu hortukanayo oo maxaan dhahaa maradii ay gadaal ka qaadan tahay, cawradiisa ban ay muuqato. qofkaas salaadaas waa ka kac, salaadaas waa ka kac, waa inuu ku noqdo weeyaan. haddii marka laakiin maradu ka dafto oo sikadiisa ay tahay ayadoo dhama, laakiin hadduu og yahay inuu nin weyn intuu funaanada soo gashto cawrada iska muuqato, salaada ku noqonaya insha Allah tabaaraka wa tacaala. qodobka afaraad waxaa weeyaan macrifatu dukhuuli lwaqti, inuu qofka u garanayo inuu waqtigii soo galay. alkhaamis qodobka shanaad istiqbaal alqibla, markaa salaada tukan in qiblada la qaabil haddii la yaqaano, kadaan la gelin qofka meel kasta u jeesto qibla u tahay weeyaan haddii uu ku wareero. maca ragcaati asalawaati almufrada, salaadaha aynu tukanno meeqa ragcay ka leeyihin waan soo qaadan laakiin wuu noogu celinayaa. 17 ragca, 14 ragcay ka leeyihiin. ragcataani fi subxi, subxi 2 ragca weeyaan. waqtigeedana waqtiga waxaa weeye min duluuci alfajri alsaadiqi ilaa duluuci shams, waana soo qaadanayo awqaatu salaam ku soo qaadanay. waa waqtigeeda waxaa weeye duluuci alfajri, inuu soo dilaaco fajrkii asaadiq runta ahaa ilaa duluuci shams, ilaa qoraxda ka soo baxayso weeyaan. waa salaadii waxaa taagnayd salaadii wey, salaad subax wey, iyo 2 ragcana inay tahay. waa tahay wa 4 ragcaatin 4 ragco fi duhri, salaad duhur weeyaan. waqtuhaana waxaa weeyaan min zawaali shams, inay qoraxda ka zuusho dhaxbartamaha ilaa an yasilu uu gaaro dillu kulli shayin mithli, hoorka wax walba inay wada sintaan oo heerkii ay wada is yeeshaan oo isku mid noqdaan weeyaan. wax yarna uu ka ziyaado saan soo tilmaanay. wa 4 ragcaatin 4 ragco fi lcasri, salaada casar wey. waqtigeedana waxaa weye min masiiri dil, inuu dhaqaaqo harkii shay walbo ilaa quruubi shams, ilaa qoraxda ka dhacayso. marka inuu wax walba harkiisii uu ka yara dhaqaaqo oo maarata duhurka marka laga baxo ilaa qoraxda ka dhacayso ayaa la yiraahdaa salaadii casar. way taagan tahay weeyaan. nacam marka salaada casar waqtigeedana hore u soo qaadateen insha Allah tabaaraka wa tacaala. wa 3 ragcaatin fi lmaqrib, salaadii maqribna 3 ragcadood wey. waqtigeedana waxaa weye min quruubi shamsi ilaa ghiyaabi ashafaq alaxmar, ilaa ay ka dhacdo maaragtay ashams qoraxda ilaa ghiyaab, ilaa la waayo ashafaq alaxmar, liilankii gaduudka ama casaanka ah ilaa la waayo. wa 4 ragcaatin fi lcishaai, 4 ragcana waa salaada cishaha. waqtigeedana waxaa weye min ghiyaabi shafaqi alaxmar, in la waayo liilankii gaduudnaa ilaa duluuci alfajri asaadiq, ilaa uu ka soo baxo fajrkii saadiqa. laakiin halka waana soo naka diidnayo, shaaficiyada sidaasay qabaan. laakiin 12 ayay ku egtahay ama nisfa leyl, habeenkii kala bariisay ku eg tahay salaada cishaha. ilaa waajiga ka dilaaca ma aha, ilaa waa ka dilaaca ma aha weeyaan.
marka sida shaaficiyadu qabaan laakiin waa sidan ma sunan waxay tahay sunnooyinka attaabicatu lilfaraa'id ila raaciyo waajibaadka maxay sunnooyinka ragcataan laba ragca la raaco waa sunnada waxa loo kala qaado kuwa mu'akadka ah qabla salaati subh salaas wax laba ragca ka horeyso oo khayr min ad-dunya wa fiha nabigeena sallallahu alayhi wa sallam alayhi ad-dunya wax ku dhex jira ka khayr badan yihiin wa arba'u ragcaatin wa arba'u afarna qabla salaati dhuhr afar ragcana waxa la tukanayaa salaada dhuhr ka hor afar ragco sunna oo la kala gooyo laba ragca tukanaysa hadana wad ka baxaysa laba kala galisa waa sunnada wanaagsan iyo wa arba'u afar ba'da الظهر صلاة الظهر كدبنا أفر بعيدا لقى تكنيا ويان وأربع بعدها أفر ولا أهر مريا أفرنا ولا قدوا لقى لكن الأسبوع حيرين ما يوالا كلا جوني ياوي وأربع أفر ويان قبل صلاة العصر صلاة العصر أفر بكورس ولو خلافه كتاني هالكس ورقعتان قبل صلاة المغرب على ولا غور صلاة المغرب ورقعتان بعدها لبر على ولا دقا ويان ورقعتان قبل صلاة العشاء صلاة عشاءنا ها لبا laga dambaysiiyaa labana laga hormariyaa waragcataan laba ragco qabla salaat al-isha laba laga hormariyaa waragcataan bacdaha labana waa laga dib mariyaa thum inta kadib alwitr qofka witrinayaayo wuxuu sameeyaa halkaas ay salaadihiisa iyo cibaadadiisa ugu soo ekaatay witr buu la imaan habeenkii markuu seexanayo markuu duhurkiisa afar buu ka hormariyay afar uu ka dib dhigay casarkii afar buu ka hormariyay maqribkii laba uu ka hormariyay labana uu ka dib dhigay labana uu ka hormariyay cishaaygii labana uu ka dib dhigay markuu saxanayo uu witriyay halkaas waxa ugu dhan maalinkaasi cibaadadiisii walaalayaal alxamdulilah halkaasaan ku geysanaa insha allahu tabaaraka watacaala darsigeena wayna kulanti dambe oo xiise leh subxaana rabbika rabbi lcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh fi amaan illah